waxa ka socda magaalada doorasho ma aha waa arrin hal group hal koox qayb kamid ah ujeedo gaar ah ay ka leeyihiin ayna tahay extensionna غير مقبول waay lama ogola mandate-ka dawladdu waa cad yahay 4 sano waaye 4 sano meesha ku dhamaado waxa la rabaa dawladdii kale in la doortaa la rabaa ama xukuumaddii kale sidaas darteed waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed jujuubka iyo jiha wareerinta in laga daayo aan la fogeynin doorashada ay jecel yihiin ee dawladnimada ay jecel yihiin waxa hadda socdana waa wada ognahay ceebahooda 1 iyo 2 hadii leeyahay lagama dhamaanayo idan waxa la sameeynayo waa maal lagu ciyaaray waqti lagu ciyaaray ummadoo la wareeriyay dadkoo laga qaado xurriyadda بالعكس waxa la fogeynayaa dadka Soomaalida dawladnimada waa jecel yihiin waana taageersan yihiin laakiin maalin walba khaladka dawladdu wuxuu ka fogeynayaa dadka dawladnimadu ka fogeynaya dawlad hirgeli karta ama shaqay karta shacab la'aan ma jirto dhaqaalihi waa aragteen dhibka ka jira deegaanka dhibka ka jira waa aragteen cadaalad darrada meesha joogto waa aragteen amniga waa aragteen dhaqdhaqaaqyada dhibka ka jira waa aragteen waxyaabahaas oo dhan qofka waxay ku reebanayaan saameyn bulshada waxay ku yeelanayaan saameyn waxayna fogeynayaan dawladnimada in la gaaro marka mar kale waxaan ku celinaynaa waxa ka socda magaalada doorasho ma aha waa arrin hal group hal koox qayb kamid ah ujeedo gaar ah ay ka leeyihiin ayna tahay extensionna غير مقبول waay lama ogola mandate-ka dawladdu waa cad yahay 4 sano waaye 4 sano meesha ku dhamaado waxa la rabaa dawladdii kale in la doortaa la rabaa ama xukuumaddii kale sidaas darteed waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed jujuubka iyo jiha wareerinta in laga daayo aan la fogeynin doorashada ay jecel yihiin ee dawladnimada ay jecel yihiin waxa hadda socdana waa wada ognahay ceebahooda 1 iyo 2 hadii leeyahay maqaamka magaalada Muqdisho oo dastuurka ku qoran oo waqti dheer ku qoran oo madashu maalin walba ay ka hadlaysay waxba waa laga qabo waay maqaamka waxa ku xiga nidaamka doorashada magaalada Muqdisho waxa ku xiga guddiga magaalada doorashada magaalada Muqdisho waxa ku xiga in la balance gareeyo oo aad loo fiiriyo dadka magaalada degan iyo dadka Soomaalida oo ku soo hiranaya caasimad ahaan ugu soo xiranaya sida ay wax wadaagi karaan